Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan daawadayaal dhegeystayaal dhammaan asxaabta ku xiran bartan waxaad kusoo dhawaataan cashar cusub oo xiisihiisa leh. Casharada maanta aan soo qaadanayno wuxuu yahay mid ka mid waxyaabaha la xiriiro nutrientska ama food supplementska ayuu ka hadli doonaa insha allahu tacaala. Cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay 5 cuno oo cunooyinka la cuno ama 5 shay oo waxyaabaha la cuno ka mid ah oo faa'iido u leh jirka bini'aadamka. Khaasatan waxay faa'iido u leeyihiin waxyaabaha la yiraahdo anti aging ama sida looga hortago da'da inay qofka da'da ka muuqato ayay faa'iido u leeyihiin waxyaabaha 5 shay aan soo qaadan doono haddii Ilaahay yiraahdo. Please waxaan kaa codsanayaa channelka hadaad ka cusub tahay inaad subscribe saarto, like iyo share na aadan ka hilmaamin. Haddii aan u guda galo 5tan shay ama 5tan cunooyin ee aan cuno markasto ee ka mid ah daily life keena inaan ku cuno, waxyaabaha ugu horeeya aan soo qaadan doono waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano babaayga. Babaaygu waa miro kuleyl ah oo ay u badan yihiin fitamiinada sida vitamin A iyo C, sidoo kalena laga helo fiber-ka iyo walxaha caafimaad qabka jirka ee ku jira babaayga. Babaayga faa'iidadiisa waxaa ka mid ah in waxyaabo badan oo jirkeena faa'iido leh aan mar walba ka helno. Waxaa ka mid ah inay ku jiraan enzymes loo yaqaano papain oo loo adeegsado in lagu jilciyo hilibka oo ka qayb qaata digestion-ka uu jirkeenu sameeyo. Babaaygu sidoo kale waxaa ku badan nafaqooyinka isla markaana ay ka wada faa'iideystaan jirka dhammaantiis sida quudista iyo difaaca jirka. Waxyaabaha laga helo babaayga waxaa ka mid ah vitamin A, vitamin C, vitamin K oo loogu talagalay maxaa la dhahaa waxa la yiraahdo dhiigga inuu ku sameeyo xinjiroobid. Midka labaad aan soo qaadanayno waxa weeyaan toonta maxay faa'iido u leedahay jirka. Toonta waxay u fiican tahay dhiig karka, waxay sidoo kale u wanaagsan tahay hoosna u dhigtaa kolestaroolka, waxay ka yareystaa cudurrada ku dhaco wadnaha. Toontu waxay aad dawo ugu tahay cudurrada ku dhaco neef mareenka sida hargabka. Waxay u fiican tahay dadka orodka sameeyo ciyaartooyda. Waxay sidoo kale sameysaa ama ay xoojisaa lafaha waxayna ka hortagtaa cudurka la yiraahdo osteoporosis. Sidoo kale midka saddexaad ee soo qaadan doono waxa weeye yaanyada markay cusub tahay farashka ay tahay waxaa ku yar maadada la yiraahdo kaarboonka. Waxyaabaha aadka ugu badan yaanyada waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo karbiska oo qayb ka mid ah cunooyinka yaanyadu waxyaabaha itemska ay ka samaysan tahay ka mid ah. Waxay ka kooban tahay badanaa sokor fudud iyo fibers kuwaasoo aan la burburin karin oo badanaa aan dissolve lagu sameyn karin. Yaanyada ama mirahaas yaanyada waxa u badan oo laga helaa waxyaabaha badan laga helo waxaa ka mid ah vitamin K, vitamin C, vitamin A. Vitamin A ama vitamin A sida u taqaano. Sidoo kale yaanyadu waxay ka hortagtaa badanaana qofka bini'aadamka ka difaacdaa inuu ku dhaco kansarka ama cancer cells-ka sida malignant tumors-ka inay ku sameysmaan jirkiisa ayay ka hortagtaa yaanyadu. Qodobka afraad aan soo qaadan doono waxaa ka mid ah maanta ama shayga afraad ama cunada afraad aynu cunno waxaa ka mid ah waxyaabaha la yiraahdo cinabka. Cinabka waa qaar ka mid ah cuntooyinka ugu caafimaadka wanaagsan ee aan cuni karto markasta aadna heli karto. Maadaama ay ku yaryihiin maadada kaloriinka la yiraahdo, cinabka waxaa aad ugu yar maadada kaloriinka la yiraahdo. Waana antioxidants-ka ka ugu wanaagsan ee jirkeena uu qaadan karo. Laakiin waxay ku badan yihiin ama ka buuxo cinabka fiber-ka sida vitamin C-ga iyo antioxidants-ka sidaan hore usoo sheegay. Cinabka waa waxyaabaha ugu badan ee la cuno waana leh waxtar caafimaad qab oo uu helo wadnaheena. Wadnaha ayaa waxa uu badanaa regulation ku sameeya ama joogteeya caafimaadkiisa waxa la yiraahdo cinabka. Cinabka sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha uu qabto hoos ayuu u dhigaa cadaadiska dhiigga marka uu kacsan yahay. Sidoo kale wuxuu reduce ku sameeyaa ama yareeyaa kolestaroolka iyadoo yareynaysa in jirka inflammation ka yimaado ama isku buuqo ama caabuq uu sameeyo. Waxaa ka qayb qaata inay waxyaabahaas oo dhan hoos u dhacaan qaadashada cinabka. Faa'iidada uu leeyahay cinabka waxaa ka mid ah marka in waxyaabo muhiim ah laga helo sida fiber-ka, vitamin C-ga, sidoo kalena uu yahay antioxidants-ka ugu muhiimsan ee jirka bini'aadamku ku helo waxyaabaha qudaarta ama cunooyinka la cuno la xiriiro.
waxyaabaha midda shanaad ama qodobka shanaad aan kusoo gabagabeynayo ama yacni sheyga shanaad ee cunooyinkeena aan ka helno yacni anti aging-ka ama waxyaabaha la xiriira waxyaabaha da'da hoos u dhigo ama waxyaabaha faa'iidada badan jirka bani'aadamka u leh ee dadku aysan ku baraarugsan waxaa ka mid ah geedka la yiraahdo cabbage-ka ama sometimes ma aqaan waxa aad ku dhahdaan ansalaatada. Sidoo kale ansalaatada waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah inay caawiso inay aad u ilaaliso ama ay yacni yareyso waxyaabaha la yiraahdo caabuqa inflammation-ka dadka ku dhaco. Kaabashku ama cabbage-ku waxaa ka buuxa vitamin C, waxay ka caawisaa kaabashku ama ay qabataa shaqadeeda ugu muhiimsan ka mid ah in ay hagaajiso ama ay caawiso qaabka dheefshiidka uu ku dhici lahaa oo process-ka dheefshiidka ay fududeysaa. Sidoo kale cabbage-ku waxyaabaha ay ka caawinayso waxaa ka mid ah in wadnahaagu ahaado mid caafimaad qaba oo wadnaha uu wanaagsanaado. Cabbage-ku faa'iidada kale ee jirkeena bani'aadamka u leedahay waxaa ka mid ah cadaadiska dhiigga ayay hoos u dhigtaa. Sidoo kalena waxay balance gareysaa cadaadiska dhiigga midkiisa systolic la yiraahdo ama midka kore. Waxay ka caawisaa cabbage-ku ama hoos ay u dhigtaa heerka cholesterol-ka inuu cholesterol-ku sare u kaco ayay anti ku tahay ay hoos u dhigtaa. Faa'iido badan ayay leeyihiin waxyaabaha food supplements-ka ama waxyaabaha cunooyinka aan qaadano ee jirkeenu u baahan yahay. Intaan kaliya ma ahan laakiin waxaan yacni kusoo koobayaa shantaas qodob oo aan soo qaatay. Faa'iidooyinkoodana waan idiin sheegay mid walbo. Waxaa ka mid ah waxyaabaha maanta aan soo qaatay haddaan si guud usoo dulmaro babaayga oo laga helo vitamin C, sidoo kale vitamin A iyo fiber. Toonta oo u fiican dhiig karka iyo cholesterol-ka inay hoos u dhigto. Yaanyada oo aad u wanaagsan oo ah fiber waxyaabaha ay ku badan yihiin fiber-iskana ka mid ah. Carbs-na laga helo vitamin A iyo vitamin C iyo vitamin K iyo kansarka ka hortagto. Sidoo kale canabka oo ah food supplement-iga ugu wanaagsan ee jirkeena uu ka helo maadooyinka fiber-iska kaloriinkeeduna aad u yar yahay. Sidoo kale antioxidants-ka ugu muhiimsan ee jirkeena uu qaatana ka mid ah. Ansalaatada ama cabbage-ka waxyaabaha aan u naqaano afka qalaad lagu yiraahdo cabbage-ka caabuqa iyo inflammation-ka aad u yareeyo ka caawinayso wadnaha in ay yacni hoos u dhigto ama regulation ay ku sameyso joogteynta wadnaha cadaadiska dhiigga midkiisa sare. Marka intaas ayaan kusoo koobayaa please waxaan kaa codsanayaa dhageyste haddii aad channel-ka ku cusub tahay inaad subscribe inoo saarto. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen casharkan. Ha iloobin inaad dabaqdo oo aad tijaabiso faa'iidooyinka ay leeyihiin waxyaabahan aan adeegsano iyo cunooyinkan aan cunno insha Allahu tacaala. Hada wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.